واتاي غوردو waxaa noo imaan doonta fanaanada caanka ah Fartumo jidka ayay ku soo jirtaa wayna soo dhowdahay mar dhow waxa bilaaban doona qoobka ciyaarkii laakiin aan dib ugu laabano dhinacii khudbadaha waxaan u yeerayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Ali Faisal Dirir Farah صعبك ووزير ku-xigeenkii maaliyadda Soomaaliya oo dhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام دمانتي بتشرف تكسو قيب شيء حفلة سنة كوردي شراب دولة قبلتك قلبه مهاد إلهي وإسكال كدبنا مهاد وحا إسكال دات كسوغا وقابي حفلة قروح البطن كل ذي السوق كاري هالكا horta hore waxaan rabaa inaan meesha ka sheego in ay Mareeg state ay tahay state aad u nasiib badan waxaa madaxweyne ka ah nin aad saaxiib u nahay dayib oo ah nin Washington DC area ka yimid marka I think Mareeg state very lucky galmudug hadda u soo laabto galmudug waxay ku amaanan tahay runtii cadaaladda iyo sinaanta iyo sida dowlad goboleedka galmudug ay uga muuqdaan beelaha walaalaha ee dega galmudug runtii waxaa hadda iskale madaxweynaha His Excellency anoo ku sii dheeraan doonin waxaa muhiim ah in mar walba oo waxaan arkaa mar walba u yimaado masawirada la kala qaato lagu kala tago laakiin waxaa muhiim ah in dadka reer galmudug dowlad goboleedka galmudug ay ku talagalaan inay wax u qabtaan dadkoodii iyo dalkoodii ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa horta hore haddaan wasiir baa ila joogay nahay dowladda dhexe ee Puntland galmudug haddaan nahay dowladda dhexe ee TFG federaalka horta hore galmudug waxaan leenahay hambaliyo haddaa eegto meesha waxaa laga sheegay heshiiskii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug wasiirkeena wuxuu sheegay waxa galmudug ay ka rajaynayso dowladda dhexe ee ah inay wax allaale wixii mucaawino ay hesho iyo horumarin qaybteeda ka hesho galmudug annagoo ku hadlayna dhinaca dowladda u hadlayna galmudug iyaduna canshuurtii iyo waxyaalihii saaran mas-uuliyaddii waa inay iyaduna bixisaa ugu dambeyn waxaa muhiim ah waxaan arki jirnay waagaan joognay annagu diaspora nahay markaanu joognay Maraykanka waxaa jira sticker ku taalo work locally think globally macnaha u fikir meesha joogto u fikir waxa u qabanaya danta midda guud marka waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada Soomaaliya waa loo baahan yahay waana wax lagu daydo waana wax lagu faano in la arko dad nabad Soomaaliya ka dhaliya si maamul goboleed ahaan laakiin waxaan muhiim ah inaan mar laga tagin Soomaaliya midnimadeeda
inaan loo fakarin dowlad goboleedku inay noqoto isqabqabsi ay noqoto mid ah jaranjaradii lagu gaari lahaa lagu soo celin lahaa sharaftii iyo midnimadii soomaaliya soomaaliya ha noolaato galmudug ha noolaato salaamu calaykum aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya cali faysal dirir faarax ayuu ahaa waxaana filayaa inuu dabcan halkan ka yiri waxyaabaha dowladda ku-meel gaarka ay ka rajaynayso maamul dowlad goboleedka galmudug goordhow fartuun waa diyaar bannaanka ay taagan tahay waxaa noo dhiman waa laba khudbadood waxaa mar dhowna qadka soo geli doona madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaase ka horeeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya cabduqaadir maxamed bare aamusnaanta fadlan aamusnaanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله الله نقصه كل مية فرصتنا نوسية إن أنكسو قيب قلنا munaasabadda lagu xusayo sanad guuradii shanaad ee maamul goboleedka galmudug allaha ayaa mahadoo dhan ay u sugnaatay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhallinyarada galmudug ku abtirsata ee xafladan soo abaabushay ayagoo muujinaya taageerada ay u hayaan maamulka galmudug aad iyo aad ayaan uga hambalyaynayaa mar kale dadaalka ay dhallinyaradu qabaan in ay maamulkaasi si wanaagsan u hirgalo maxaa yeelay taariikh ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii xorriyadda Soomaaliya maxaa la yiraahdaa sababta u noqday inkastoo anigu naftirkayga aan ka mid ahaa dhallinyarada oo aanan ka gudbin weli oo aan isku tiriyo inaan dhallinyarada ka mid ahay waxaan mar saddexaad u hambaleynayaa dhallinyarada galmudug ka abtirsata waxaan ka mid ahaa wafdigii hadda soo maray maamul goboleedyada sida Puntland iyo galmudug soo maray meesha waxaa ka socda dadaal badan oo ay maamul goboleedyada wadaan laakiin waxaa ka maqan sida wasiirkii ugu horeeyay uu sheegay in aan xaflad lagu ekaynin gacanta laga qabto laga shaqeeyo وهجاج فنانة وين فرتون أحمد سهل بريمو واتهاي فرتون وينو هيسي دونتا لكن عندما يسترنو خطبة وزير كحجينك وزارة وحبرشة دولة كميل جاركا الصومالية عبدالقادر محمد بري فرتون وديار ودو جدان ويدي سوغيسا ديار waxaan aad iyo aad dhallinyarada maaragtay soo abaabushay xafladan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ay isu soo abaabuleen waxaan kaloo ku boorinayaa maadaama dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dad muslimiin ah in aysan haddii xaflad ay dhigayaan iyo haddii ay maxaa la yiraahdaa ay faraxayaanba aysan ka tegin Allah subxaanahu wa ta'ala muraaqabadiisa ilaahay inay ku xisaabtamaan in aysan la tegin xafladda marka la dhigayo laakiin ay noqdaan dad ku xisaabtama yaa idin muraaqabaynaya yaad u baahantiin yaa idin maamula yaa u baahantiin taa ma la isweydiiyey عدة أنو بحنو الله سبحانه وتعالى عدة أنو بحنو الله سبحانه وتعالى صوماليا هلا بل إن شاء الله واحد رجيسنا هدي الله يرادو
dadaalka ay dhallinyaradu samaynayso waa inay qorshahan ku darsadaan mar kaste ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ka samaynaya uu la tago maalintaasaa la doonayaa addoon waliba inuu u diyaargaroobo maalinta in la farxa la doonayo nimcada iyo barwaaqada ay jirto la dhihi doono dadka wanaagsanaa xisaabtamay adduunyada markay joogeen udkhuluuha fi silmi kaafa idinkoo dhammaantiin nabadgelyada gala jannada la dhihi doono maalintaa waxay uraynahay cibaado tahay inaan ilaahay caabudna subxaana wa tacaala nafta iyo shaydaanka iyo shahawaadkuna inaysan naga tan badnin qof waliba marka inuu ku xisaabtamo ilaahay siduu u raaligeli lahaa sidaa darteed marka insha allah xafladana inay buuq ku dhammaato lama rabo buuqa aan joojinno wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيرك وحبرشاد وزيرك حقيقة وزارة وحبرشاد دولتكم الجاركة الصومال هاي فريستا 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 فرتون بعد الله ليس فرتون هذا الله ليس فريستا